Mararka qaar dadku waxay ku duceysan jireen Ilaahu aan ugu aadin Barcelona. Maanta waa mid lagu tashto, waa mid ka mid ah kooxaha ugu daciifsan Yurub ka ciyaaro. Maanta markii la isbarbar dhigo Barcelonadii shalay iyo tan maanta isku mid maahan, farqi weyn ayaana u dhexeeyo. Barcelona mar waxay ahayd koox ka soocan kooxaha Yurub. Waxay heerkeedu marayay in kooxaha Yurub badankooda markay isku dhacayaan ay geyso gool ka badan 5 iyo wixii ka sii badan. Laakiin maanta heerka ay marayso waa Ilaahu iga soo gaar. Barcelona ayaa hadda Al Clasico la ciyaari jiray waxa iska yeeshay kooxda Real Madrid. 5 kulan oo ugu dambeysay hal mid ayaa baraja la galay, 4 kalena Real Madrid ayaa badisay. Vinicius Jr ayaa wuxuu ka noqday Ronaldo cusub ee Al Clasico. Maanta Barcelona markay la soo shax tagayso ciyaartooyda kala ah Memphis Depay, Ansu Fati iyo Dest. Laakiin mar waxaa jirtay Ronaldinho iyo Messi ay afka hore ciyaari jireen, halka dhexda Iniesta iyo Xavi iyo ciyaaryahanada kale u ciyaari jireen. Laakiin maanta waxaas oo dhan waa laga soo gudbay. Barcelona waa mid ka mid ah kooxaha ugu daciifsan. Ilaa iyo hadda waxay guul leedahay 4 game ay ugu dambeysay ciyaarto La Liga. Kooxdan ka dhisan Catalonia ayaa mar waxay ahaa jirta mid ugu wanaagsan caalamka. Laakiin maanta waa mid ka mid ah kooxaha ugu fudud ee loo dhaco. Kooxaha Arsenal haddii mar la dhaleecay jiray oo la dhihi jiray Arsenal kubadda cagta way si iloobaysa damiinayaal ayaa dhaafeen. Laakiin maanta Arsenal iyo Barcelona haddii la isbarbar dhigo, Arsenal ayaa waxay noqonaysaa Bayern Munich. Arsenal inkastoo maalmahan ay ka duwanaatay sidii hore oo noqotay koox hami sare leh, laakiin muuqaalkeena maanta Barcelona ayaa nooga hadlaynaa. Barcelona mid ka mid ah kooxaha ugu daciifsan ayaan ku tilmaami karnaa. Markaan isticmaalayna ereyga ah kooxaha ugu daciifsan kama xishoonayno, maadaama maanta heerka ay marayaan ciyaartooyda ay haystaan ay yihiin kuwa aan meelna gaarsiinin Barcelona. Coachkoodii ayay ciidiyeen, laakiin kan cusub ee hadda haya wax kuma soo kordhin. Fikradaada waa noo muhiim, mahadsanid.